gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed Xiir ayaa kormeer ku tagay xarunta caafimaadka ee magaalada Taleex ee xarunta gobolka Xaysimo. gudoomiyaha ayaa halkaas kulan kula qaatay agaasimaha xarunta caafimaadka ee degmada Taleex. xarunta caafimaadka ee degmada taariikhiga ee Taleex ayaa waxaa muddooyinkii dambe la keenayay dad u soo ritay xanuunka shuban biyoodka oo ka dilaacay deegaanada gobolka Xaysimo, iyadoo uu noo xaqiijiyay agaasimaha xarunta caafimaadka ee degmada taariikhiga ee Taleex inay u dhinteen 29 qof intii uu jiray xanuunka shuban biyoodka uu ka dilaacay deegaanada gobolka Xaysimo. boqolaal ahina ay u soo ritay xanuunkaasi shuban biyoodka ugu horeyna waxa halkaas ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee degmada taariikhiga ee Taleex iyo guud ahaan gobolka Xaysimo agaasimaha xarunta caafimaadka ee degmada Taleex. ilaa intii cusbitaalku furnaa waxa yaraaday number dadkii dhimanayay, mortality rate aad ayuu yaraaday, dadkii referral sameeyay wax loo qabanayna aad ayay u bateen. isla markiiba waxa la helay faa'iidada uu leeyahay cusbitaalku deegaanka Taleex waxa shubanku saameeyay dad aad u tiro badan oo ilaa 400 qof gaaraya ayaa cusbitaal la jiifiyay oo yaana cusbitaalka la soo jiifiyay iyo santaradii kale ee markaa bisha sida ku meel gaarka ilaa xalin ay wada sameysay dadka dhintay qoran ee listada ku jira dad badan oo yaryar oo dhimanayeen oo jireen sida dhulka miyada ku dhimanayay, laakiin minimum data ugu yar dadka magacyadooda la hayo oo dadka oo inuu badan 29 qof ayaa listooda la hayaa. ahaan gobolka Xaysimo area uu badan yahay waa Taleex yahay boo badnaayeen oo ah dhulka uu ka dilaacay shuban biyoodku. baahiyaha cusbitaalku aad ayay tiro badan yihiin oo cusbitaal dhawaan furmay oo cusbitaal under zero oo hoosta laga soo bilaabay. wuxuu u baahan yahay haday tahay dib u dhis infrastructure cusbitaalku uu dayahay tiro badan ayaa ka muuqda. haday tahay xagga qalabaynta cusbitaalku ma qalabaysna oo emergency cusbitaal buu furan yahay hadda si dadka shumay baa wax loogu qabtaa oo qalabayn uu u baahan yahay. wuxuu kale u baahan yahay waxa jira xagga korontada cusbitaalka koronto male inkastoo motor la siiyay laga yaabo in aan u maleeyo in maanta lagu soo wareegayo oo adaradayaasha noo joogan maanta la ku wareejinayo ay jirto intaasna. laakiin cusbitaalka baayis aad u taban shaqaaluhu kuma filna oo shaqaaluhu ku yahay cusbitaalku u baahan shaqaale ama lagu soo boqday sida gudoomiyaha xilli loo baahday 25 sano cusbitaalka xilna 25 years bixina hadda waxa furtay baahi loo baahan yahay furtay baahidii loo furtay yani waxaan oran karnaa boqolkiiba 80 uu koofar gareeyay waa anfacay oo waa lagu nastay waa lagu midho gaaray. baahiyaadka isbitaalka markaan ka hadalno isbitaalku wuxuu u baahan yahay qof loo arka gudoomiye xalnaya deena gudoomiye wax badan ka qaban doonto haday noqoto xagga hay'adaha haday noqoto xagga maamulka dawladda haday noqoto xagga shaqaalaha iyagoo aan enrollment-ga wali listada wasaaradda caafimaadka aan gelin. wuxuu cisbitaal u baahan yahay oo dhan buu u baahan yahay maqas baa ugu hooseeya yani waxa ugu sareeya qalliin baa ugu sareeya. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee guud ahaan gobolka Xaysimo iyo sidoo kale waxyaabaha uu u baahan yahay xarunta caafimaadka ee degmada Taleex, isagoo sheegay gudoomiyuhu inay si degdeg ah uga howlgali doonaan wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda Soomaaliland ugu horeynba uu u baahan yahay xarunta caafimaadka gaari loogu adeego dadka dhibaataysan ee ku dhacay xanuunka shuban biyoodku. dhibaatadii ka dhacday gobolka caafimaad darrada ahayd ee dhimashada badan keentay boqolaalka qof u soo riday oo nafaqa darrada iyo xanuunku biyo xumada iyo jilaalku ay sababta u ahaayeen xanuunkan meesha ka dilaacay. gurmadka iyo juhdiga ay geliseen cusbitaalkan oo muddo badan xidhnaa oo aan runtii wax badan xaawilay waa kan ninkii odayga gacanta ku hayay wax badan baan waxaan xaawilay cusbitaalka sidii loo furi lahaa laakiin nooma suurtagelin makaaniyaadka awgeed oo aanan u hayn wax dawaa iyo backgroundkii shaqaalaha cusbitaalka oo aan wasaaradda aan miisaaniyadda inay ku daraan marna nooga suurtagelin. sanad kastaana waanu xaawulaynay in lagu daro sanadkan ayay intii miisaaniyadda lagu daray shaqaalihii gobolka ee wasaaradaha laakiin bay ahayd in la qaato laakiin wax joojiyay abaartii waddanka ka dhacday oo waxa la leeyahay shaqaale qaadan lahaa ama mashaariic cusub ee la sameyn lahaa waxa loo xayiray in abaarta loo gurmado waddanka guud ahaanba waxa ka dhacday abaar xun xanuuno badan baa ka dilaacay wadagtiino dhul badan baa shumankani waxaan ka dilaacay dad badan ku dhintay. dawladdu waxay soo jeesatay in lala dagaalamo
oo wixii dakuleen laga geysan karo laga geysto abaartan iyo dhibaatooyinkan ay sababtay iyadoo ay keentay wixii mashaariicda dawladda qaban lahaydna waa ku amrowday wixii abaartaas ina kaga xayirin alxamdulillah hadda roobku waa ku andaay wixii dhimanay shaqaalihii gobolka iyo arrimaha bulshada waxaan rajeynaynaa insha Allah iyaguna inay dhaqso u dhaqaaqaan cusbitalkana sida aad uga shaqaysiiseen waanu idinkala shaqeynaynaa wixii baahidiisa ana insha Allah taala waxaan jecelahay in dhaqso loo qabto oo waliba gaarigan balaaska ee u shaqeyn lahaa deegaanka iyo shaqaalaha bayroolkoodii maxamuud aadan askar maxamuud gurey telefishinka caalamiga ee Somali News xarunta gobolka Xaysimo ee taleex.